caawa waxaan isleedahay oo aan aad idinka codsanayna insha allahu tacaala inaad nagala qayb qaadataan runtii kalsoonida labada qof ay isku qabaan maxaa ka hor iman kara, maxaa burburin kara, maxaa baabi'in kara, mase tahay tolow kalsoonidu midda reerku uu ku dhisan yahay oo haddii ay kalsoonidaasi meesha ka baxdo, hadduu qofka kale uu ku kalsoonaan waayo, haddii ay timaado walwal iyo cabsi, haddii ay timaado baqasho uu qofka kale uu ka walwalo in uusan jacaylkii uu yidhaahdo jacaylkii meesha uu ka siibtay ama uu ka baxay, suurtagal ma tahay in uu gurigaasi yacni dabayaaqaysto oo uu burburo. saas daraaddeed marka caawa waxaan wax yar isdul taagaynaa insha allahu tacaala, janisna aan u siinaynaa walaasheenna qiimaha badan leh in ay nala wadaagto aqoonteeda iyo aragtideeda iyo inta ay wax akhrisay ay wax baadhay arrintan wixii ku aadan wixii ay naga odhan lahayd. caawa waxaan isleeyahay waxaan bal isla eegaynaa kalsoonida maxaa burburiya. hibo hameenkii hore waxaan ka soo hadalnay runtii sidaan sheegay wixii kalsoonida dhisay, waxyaabaha ugu macaanaayo ugu qurux badnaa waxaa ka mid ahaa qofka kale inuu qiimeeyo oo uu meel sare uu u taagnaado. maxaad is leedahay way ka hor iman karaan waxaas oo way burburi karaan? baarak allahu fiik. maasha allah, jazaaka allah khayr walaal, aad baad umahadsan tahay. runtii waxaad kusoo koobtay hadalkaaga inta ugu dambeysa haddaan ka raaco inuu qofkiisa kala qiimeeyo. qiimeynta uu qiimeynayo muxuu ku qiimeynaya? waxyaalo badan inuu ka dhowro ayaa la rabaa. waxyaalaha uu ka dhowraya waxaa ugu horeeya qofka aada la nooshahay eed qiimeynaysid meel sare kaa jooga, runtii beenu sheegi maysid. shayga beenta la yidhi waan ognahay diinteennu meesha iska taagta. waxaa weeyaan almuslimu laa yakdib, soo maaha? qofka muslimka been ma sheego, qofka mu'minka been ma sheego. beentu hadda waxaad moodaa dadka isqaba inay xoogaa maadaragtay ay samaynayaan been, ay ku hadlayaan been. waxaa beentaas ka mid ah walaal waxa weeyaan qofkii oo qofka kale xoogaha ka yar foka camal, maadaragtay meel fudud meel fudud uun waxa ka sheeg saaxiibaday baan la joogay oon la baashaalayay, maya meeshan kalean ku mashquulsanaa. wax yaroo iska fudud oo aada qofka u fudaydsanayo ayuu beenta soo gelinayaa. kama wadna been weyn buu sheegayaa, laakiinse taasiba waa been. waxay been ku tahay waxa weeyaan halkeed joogtay marka lagu idhaahdo maxaad ku maqnayd, qofka run iskaga sheeg, halkaasaan joogay. adigana waxaa weeyaan kalsooni baad isku qabtaa, haweenadaadiina amba ninkaagiina waxa weeyaan hiqi kugu qabi doonaa. runtaadu hadday badato waxa weeyaan qofkan kale kalsoonida oo kugu qabay ayaa badanaysa. marka beenta walaalayaa ka mid ah in layska ilaaliyo. aad bay beenta u burburisaa isku kalsoonida iyo isku duubnaanta reerka. hamoodin qofkan bil-aadanka aad beenta u sheegaysa inuuna dareen lahayn. waxa weeyaan beenta markuu qofku sheegayo dhagaysa qofka kale uu ku maqlay, laakiin qalbigiisu ma qaadanayo. qalbigu wuxuu dareemaa runta, uu dareemaa beentana uu dareemaa. qalbigana waxaa xukuma allah, ilaahay baa gacantiisa ku haya. marka been uma sheegi kartid, allah maad been u sheegi kartaa? uma sheegi kartid. siduu ilaahay kuu maqlaayo ay malaa'igtu kuu maqlayso ayuu qalbiguna u dareemayaa inaad been sheegaysid. marka haba kuu yarato amba kuu badnaatay iska ilaali been, runta iskaga dhimo. taas yacni beentu waa waxyaabaha kalsoonida burburiya. saas markaan u dhigno. okay, ma laga yaabaa anigu yani qodobkan waxaan isleeyahay waa qodob runtii aada u ballaadhan. dadkuna ay sodan karaan dee dad waaweyn baan nahay been sideen ku sheegi karna. waa sax weeyaan. ma laga yaabaa marka qofka in telefoon loo soo diro maalan nolosheena markaad eegto inta badan waxaad aragtaa galbeedka weliba marka laga hadlayo, yani kama hadlayo africa iyo meelaha kale, laakiin galbeedka dadka ku nool oo yani qurbahan ka wada galbeedka, ma laga yaabaa yacna in ay dadka qaarkood su-aalaha ay dhibsadaan. maalan haweenku inta badan ilmihii bay hayaan, gurigay joogaan. raggu inta badan maalan way maqan yihiin, ama shaqaha ku maqnaado ama baashaala ku maqnaado, wuxuu doona ku maqnaado.
maxaad is leedahay way ku kalifi kartaa beentan inuu sheego qofku, ama ma dhici kartaa inuu isleeyahay yacna mathalan ninku haddaan ka soo qaato oo gabadhu ay tirahdo xaggee joogtaa, oo uu iskala fadhiyo yacna rag iskala fadhiyo saaxiibadii ah, telefonkaagii u arkay oo heblaayaa soo dhacday, meeshaad joogtana halkaa baan joogaa, talow kuma fiicna in iyada loo sheego. yacna taas ma keeni kartaa yacna in ay ku kalifto meesha uu joogo, waktigaa uu joogo, inayna munaasab ahayn inay ogaato gabadhiisu inuu is yidhaahdo? way keenaysaa akhiyo, waxay u keenaysaa waxa weeyaan qofku maba rababa waxan in la ogaado. beenta waxa sababaya waxan ayaad rabtaa inaad qarisid, sida ugu dhow eed u qarin kartidna waxa weeyaan inaad wax kale ku bedeshid oo tiraahdid meeshan baan joogaa, amba meeshii aad joogtay aad xoogaa maldahdid oo maaragtay xeelaysatid. dadka badankoogu way iska yar xeelaystaan. ma laga yaabo qofka inuu ogaado raali noqo? akhi waxa weeyaan uu ogaanayaa mar waxaa dhacda aad khashifmaysid. waxa weeyaan hal mar haddaad fakatid, mar labaad haddaad fakatid, mar saddexaad waad khashifmi. rag iyo dumar waxay doontaba ahaado, qofkaasi hadduu been caadaysto uu khashifmayaa. maxaa laakiin iska ratimaya walaal beenta maxaa ka ratimaya? beenta waxa weeyaan waa dhibicdaa madow ee qofka ku socota, way beeraysaa aakhirkana maxay noqonaysaa inuu qofku isweydiiyo oo shalay buu waxaas qariyey oo daraad buu waxaas yar ii dul maray, talow maxaa kaloo jira, talow muxuu qofkani ka shaqeeyaa, talow xaguu aadaa. qofkii maskaxdiisa waxaad ku beertay adduun kalaad ku furtay. meesha ugu daran raali noqo hibo, meesha ugu daran oo aan isleeyahay ragga odayaasha iyo dumarka khayrlaha siiyana fiirsanaya, runtii waan jeclaan lahaa qodobkaas in idinka laftigiina hoosta intaad ka xariiqdaan aad nala soo xidhiidhaan ood nala wadaagtaan khibraddiina iyo aragtidiina. ma dhici kartaa hibo mathalan masaladan waa masale aada muhiim u ah, yacni rag iyo dumarku in khaasatan meelaha la joogo iyo waxa lagu maqan yahay iyo waxa laga shaqaynayo, in uu qofka kale uu isleeyahay isaga oo yacni min baabil maslaxa ka dhaqaaqaya uu isleeyahay qofkan ka ilaali, gaar ahaan gabadha ka ilaali in ay wax foolxun kaa maqasho ama ay kaa ogaato information aan iyada farax gelinaynin. vice versa ma dhici kartaa dhinaca kale iyada laftigeedu gabadhu in ay shaqooyin iyo business iyo wax iska wadato ama ay wax iska samaysato, ama maya deymo inay gashay wax soo qaadato, ayna rabin ninkeedu inuu ogaado. eeg qolaba meel bay leedahay oo ay wax ka qarisaa. dumarku dhinaca lacagta, wax businesska, wax gadashada, ragguna dhinacan maxaan ku idhahday meesha lagu maqan yahay, meesha uu joogo, cidda uu la sheekaysanayo. weliba marka ay tahay ninku markuu xaas leeyahay uu damcayo inuu xaas kala helo ama uu yeesho, yacna meelahaas ma keensan karta ma is leedahay waa meelaha clashka uu ka dhaco ama keensan karta inay baabi'iso kalsoonidii? waxaasoo dhan akhiya waxaa lagu soo koobi karaa waa run oo dadka maad aragtay ay cabsiba horta u geynaysa. nacam wuu baqayaa qofkan wixiina sideedii uma cadayn karo. kalsooni darro ma tahay cabsida wax keenaysa? mar walba waxaa la rabaa kalsooni darro way tahay oo beenba muu qofku muu ku fikiraan inuu been sheego. markaad sheegaysid meeshaad joogtid iyo waxaad ka shaqaynaysidna lagaama rabo inaad maaragtay si daqiiqa aad u sheegtid oo halkaas iyo halka ayaa waxaa baan samaynaya, qofkaas aan laadlay waxaa baan ka shaqaynayna oo sidan cid ku weydiisay ma leh. laakiin guud ahaan maaragtay wixii aad ku mashquulsan tahay amba hawsha aad ku jirtid, haweenadaadu iyo ninkaagu inuu ogaado wax ka muhiimsan ma jirto. labada qof ayagaa iskugu dhow dad. haddii ay business ka shaqaynayaan ayaga ka samayn kara business fiican samayn kara, haddii ay dano kale iyo hawlo kale ay samaynayaanna waxa weeyaan ayagaa iskugu dhow inay horta isla shaqeeyaan, isfahmaan.